General Ayub oo shiishaya tilmaan nood jirta 2 kiiloomitir iyo anigoo ku ceeboobay shiishkayga. ninka u jeedan waa Kabtan Ayub liifkiisa waanu aragnaa inuu ciidan soo ahaa jirana muran iyo shaki kuma jiro laakiin waxaynu diidanahay 1 kiiloomitir ayuu wax ka liifaya qoriga ka 900 mitir ayuu wax ka diraa qoriga la yiraahdo dacaylaha oo bushunta yar oo dheer leh ayaa ku darsada 100 tilaabo kale oo 1 kiiloomitir wax ka dila qoriga uu hadda ridayana waa aake afjar ah weeye ama shaamba weeye 900 tilaabo ayuu wax ka dila askari soo ahaa jirtay oo xilligii Cabdullaahi Yuusuf aad ku biirtay ciidamada cidna ma diidana Kabtan Ayub 2 jeer baynu kulanay oo sheekaysanay asagu maalin waxaynu isla afgaranay dadka reer Gurceel baa yaqaane ciidan candhameydle laga soo buuxiyay oo 2008 xilliga loo waday magaalada Muqdisho loo waday iyadoo marka aynu doonaynay run hadii laga hadlayo inaan hubka dhigis ku sameeyno oo ciidankan candhameydlaha laga soo buuxiyay magaalada Muqdisho loo wado ee shacabka doonaya inay ku xasuuqaan aynu hubka ay wataan halka uga reebano dadkii odayaasha ahay ee meesha deegaanka odayaasha ka ahay ayaa nagu soo baxay ayagii aan celiyay waxaynu isla afgaranay marka ciidankanu inaysan marin ka dhigan Gurceel oo inta Gurceel maraan oo magaalada Muqdisho tagaan hada wallahi been maahan reer Gurceel hadaa tahay oo goobjoogu ahayd ama aad hokaysid qaybta hoos commentiga nuula soo wadaag dadkii odayaasha iyo deegaanka ayaana soo kala dhaxgalay deetana anagu waxaynu markii ku adkaysanay ciidankan gurmadka ee magaalada Muqdisho u socda inaynaynu yeelin bartiibay ka kala wareegeen waxay ugu maqaaraa dhanka iyo caabud waq inay ka wareegeen oo halka ay kililka ka mareen oo halka Kismaayo iyo Baydhabo iyo halka ay ka wareegeen oo xitaa aysan beledweyne soo marine halka ay magaalada Muqdisho ka galeen habeen dhan baynu sheekaysanay waxaynu isla fahanay marka ciidankii candhameydka saarnay oo markii magaalada la soo gelinayay shiraac lagu soo daboolay ayagoo dhamaa 400 wiil la doonayay in laga dhiga gaari alaab ku roran tahay sidaana lagu gudbiyo sababtoo dadka deegaanka magaalada Gurceel iyo gobolada dhexe dadka dega dad cayaar maahan umada Soomaaliyeed oo waxay marqaati ka tahay inay yihiin dadkii ugu horeeyay ee nimanka shayaadiinta awoodooda ku baraway iska saaray Kabtan Ayub marka inaad erkaa ciidamada kugu daray oo askari soo aad oo qori sida loo riday aad taqaan ciidano ku diidi mayso laakiin 1 kiiloomitir waa ka diidnay qodobka marka ka soo gudbo baraha bulshada dad badan baa waxa isla dhex marayaan ninkii Kabtan Ayub ay markii uu xagga tagay sharcigii baa laga laabtay arrinka marumba ma beenba anigu waa xoga kama hayo laakiin markii aynu sheekaysanaynay wuxuu ila wadaagay inuu sheegtay inuu askari yahay magangeliyo doon inuu yahay qofku hadduu askari sheegtay oo magangeliyo meesha iskaga dhiibay hadduu wadankii tago oo qori qaado maahan waa shaqadiisii ayaguba waa og yihiin ninkaan inuu askari yahay askariyo maxaad qori u qaadana dhiimayaan wuxuu kale ku andaco karaa xisbigii aan ka soo cararay ee talada hayay hadda ayaynu waxaan doonayaa inaan talada ka wareejiyo oo xisbi ka wanaagsan maadaama ayaga aan ka soo cararay ay talada qabtaan waxa u furan wadooyin badan oo uu ku badbaadi karo anigu ma aaminsani qof shacab ah oo inta is dhiibay wadankii waa la idil rabay ama waa uga soo cararay yiri maahane ninkaanu nin sargaal oo teeta loo xidigiisii wato iyo aha laba qodob isku ma haysano Kabtan Ayub inuu ku jiro dadka saqarjaamiinta ee afka xun ee qabiilada caaya asaga iyo team aad u tiro badan oo daar cala soo kamid yahay oo ciidan ka badan ummadii Soomaaliyeed 2023 ku soo celiyay qabiilkii 91 laga soo gudbay hadda iyo challenge qabiil ah dadkii bilaabo waay inay dad xun yihiin la isku haysto laakiin sida aad wax u dhigaysaan waxba maahan ninkaan uu isbadbaadi karaa qaababku isku dhiibay ayaa waxa ahayn qaabab farsamaysan markii hore wadankii inuu ka soo laabtana dambi asaga kuma aha qof shacab oo isdhiiba maaha marka taa la ogaado anigu qodobka aan ku dhagan waxay tahay warqor 1 kiiloomitir waxba kama dilo 900 tilaabo wax ka dila Kabtan Ayub sheekada waa lagu fahmay halka iyo labada xun oo nagu jira daruuf baa u geysay fuyuus baa u geeyay lacag bay iibsadeen aqligoodii bay iibsadeen